kusoo dhawaada daawadayaal channelka ciyaaraha ee Taageera TV. barnaamijkan caawa aynu bilaabi doono waa barnaamij la magac baxay codka taageerayaasha. barnaamijkan oo aynu si toddobaadle ah idinka soo gudbin doono channelkan ciyaaraha ee Taageera TV. waxaa igala qayb qaadanaya taageerayaal iyo asxaab. waxaa midigteeda fadhiya Cabdiraxmaan Saciid Barre, waxaa halkaa idinka muuqda Cabdibaas Jaamac Cali, waxaa kale oo isaguna nala jooga Muxyidiin Dool. barnaamijka waxaanu toddobaadkan u horeeya ku falanqeyn doonaa sida noo ogsoonahay waxa bari bilaabmi doona horyaalka qaaradaha Yurub oo maraya wareegiisii meel aad u xasaasiyad badan wareegiis teesteeda. ciyaarta u horeeya waxa ciyaari doona kooxaha Real Madrid iyo Liverpool. waxaan ku soo dhaweynayaa Cabdiraxmaan Saciid oo loo yaqaano Cabdiraxmaan Shaafi. Cabdiraxmaan, bal sidaad aragtaa kulanka? يونس سود ما تنتهي عيارة ريال مدريد يو ليفربول وعيارة ذاك طبعا لبض الكوحود وحكيم دين لبض الكوحود وجوهنا شذا بدل كوب كوف تشامبيونز ليج تاريخان كوب كان هو كوب تاريخية وكوب كم كوب كوب حاسسن أما وجوه معصية بدل لقارة يوروب يدون كورن لقى عياره كوحد ريال مدريد وكوح تاريخان لير جريسة ما هو جامسة ترتن كان صدحته وان شهر هراي كوجوليستي ليفربول oo kooxdii ku guuleystay sanadkii ka horeysay oo iyaduna 6 jeer ku guuleystay ahna kooxaha Ingiriiska kooxaha qaanashada badan leh طبعا labada kooxood kuma jiraan waqti fiican oo waxaan moodaa labada kooxood baa in ritmkoodii iyo qaab ciyaareedkii ay ku bilaabeen inuu hoos u dhacay waliba khaasatan markaynu eegno Liverpool 6 months before ama 6 bilood ka hor waxay ahayd koox hogaaminaysa liiga Ingiriiska waxay kooxaha ugu kubadda fiican la Yurub waxay haystaan macallin fiican oo khibrad ahaan iyo taatikaan aad u fiican Madrid oo aad moodo kooxaha 10 sano u dambeysay ama 5 sano u dambeysay ugu fiicnaa waa Champions League haddana uma muuqato hadda inay fiican tahay waxyaabaha iyaduna garab socda oo jira wax kamid ah in Madrid oo kale ciyaartoyda ugu fiicnaa oo kamid yahay Sergio Ramos oo kale la filayo inuu maqnaado gamekaas oo ku soo dhaawacmay ciyaarihii national teamska marka aniga aragti ahaan waxaan qabaa oo ila muuqata inay tahay ciyaartaas ciyaar arag labada kooxood waa mutakaafi ama awoodahooda marka la isbarbar dhigo waqtiga xaaladda ay ku jiraan teams squad ka haystaan ciyaartoyda ka maqan Liverpool oo kale waxa ka maqan ciyaartoy aad u fiican oo lafdhabar u ah sida Virgil van Dijk baa ka maqan John Henderson baa ka maqan Joe Matip baa ka maqan ciyaartoy lafdhabar u ah Liverpool ayaa ka maqan laakiin anigu fikrad ahaan waxaan qabaa Liverpool waxa haysta macallin fiican ninka Almaaniga Jurgen Klopp waa nin taktiikiya waa nin bedeli karo ciyaartoyda sometimes ay ka maqan tahay haddana kooxda manage garan kara طبعا iyadoo aad mooday imika negotiation inuu ku dhacay hoos u dhaco tactics iyo teamka moralkiisu hoos u dhacay haddana before 2 days ama laba cisho ka hor waxay ka soo badiyeen Arsenal iyagoo waliba away 3-0 marka taas waxa ku tusaysaa in kooxda awoodeedii iyo niyadeedii intuba ay soo noqotay marka kulli walaalaha uga baxaya laakiin waxaan qabaa ciyaartaas inay tahay ciyaar 50-50 ay tahay labada teamba aad buu ugu mahadsan Cabdiraxmaan sida uu falanqeeyay kulanka Real Madrid iyo Liverpool si fiican buu qaadaa dhigay runtii aad ban yani waa falanqeyn aad loogu qanci karo anuguna waan ku waafaqsanahay points fara badan oo ka hadlay waxa aan ku wareejin doonaa imika Cabdibaas Jaamac Cali oo kabtan Basoodi oo taageere weyn oo Real Madrid ah sideed u aragtaa adigoo ama kooxdaada oo xagli ra'yigaaga shakhsiga bal ciyaarta noo dhib Yunis aad baad mahadsantahay Cabdiraxmaan baa dhameeyay kabtan Shaafi baa dhameeyay Real Madrid xaaladdan hadda ku suganahay waxa weeyaan xaalad aan ka farxinayn taageerayaasheeda haddii ay noqoto laacibiinta noo ciyaaraya teamka ka ciyaaraya iyo hadday noqoto xaaladda ay marayaan laacibiintu waxaad arkaysaa ciyaarihii ugu dambeeyay liiga waxaan ku badinaynay last minuteska ugu dambeeya ayaanu badinaynay taa horta waan ku farxi karnaa waxaan u arki karnaa in aanu leenahay sabir 90 minuteska inay naga go'anta inaan badin karayno Real Madrid waxa naga maqan Captain Ramos oo in badan aan suginay inuu liiga noo soo noqdo oo arkaysa ciyaarihii uu naga maqnaa in aad aan uga nooga jiiftay markii uu kaliya noo soo noqdayna xulkiina looga yeeray xulkiina haddana kabtankii lagu soo dhaawacay Sheikh Al-Qabila magaciisa la yiraahdaa Captain Ramos sheekh ayagu uu naga maqan yahay Captain Benzema
uu joogaa oo ninka aan imka aad naadiga ay ku taamayso weeyaan ninka keliya ee imka naadiga wadaaba waxa weeyaan waa Benzema ninkii Hazard la oran jiray aan ka siibsanay naadigii aad Yoniso taageerta Chelsea ninkaas waa raggan uu magaranayay last 10 years ka raggii aan u hanweyneen haddana aan magaranayay halkii aan ka rabnayna gaarsiinin halka waxaan u arkaa Liverpool haddii aanu waajahayno sanadkan Liverpool xaaladan marino mid ka daciifsan bay maraysaa horta Liverpool why cause waxaad arkaysaa Liverpool rhythmkii ku socotay first partkii ugu horeeyay liga iyo partkii intii dambe isku mid maaha intii dambe sidoo Captain Shafi sheegay down bay u noqotay waxaana sababaha dhaawacyadii badnaayeen naadiga ku soo kordhay annaga أنا ما هم مغناده الشيخ القبيله هنجا مغناده هزارو لبدي عشرة مر دعوة يرجليو محي هذي إنا كيجي فاسكس أو مقرنا ساعي دقيقة ده قدام بيجي بنزيمة قالش هنورد عليان لكن هذانا وحانو واحد أركيسا إلا حتى إنه نادي أم بكوح ده كتر تبيس الليجي تاس مركلاجا إماتو ريال مدريد وشامبيون ريال مدريد وشامبيون وحنان هو عدو دونتو باير تاسو عرتا انغا يمكا ان انغو كبدينو باير باريس سان جيرمان لفتيده هدي تيماتو سيتي او كابتن غوارديولا وتا شافو waxaan huba in anugu Real Madrid aniga oonu eegeen waxyaalo kale laakiin waxaan huba anugu Real Madrid is the champion aad buu mahadsan Cabdi Baasit runtii si fiican buu falanqeeyay waanu faanay runtii طبعا فانك حق buu leeyahay oo Real Madrid waxa weey Champions League saddexdan bay ka haysataa ixtiraamiyo ayaanu hayaa inkastoo aan ra'yiga inay soo baxaysa aan la qabin laakiin ra'yigiisa aan ixtiraaminaa kulli waa taageere ama ha caadifad hadlo ama ma garanaysaa kuma adkaynayo runtii Real Madrid laakiin ra'yigaas aan ku waafaqsanayn oo xagga damaan ka sii faahfaahin doona iminka waxaan ku soo dhaweynayaa isaguna Muxyidiin Dool oo taageero weyn oo Liverpool ah waxa weeye jamaahirtii hore ee Liverpool u soo sabirtay ma aha jamaahirta imika 2000 marka day khayrka ay heshay baska soo foolaha waa runtii ilaa markii day abaartu jirtay ma garanaysaa maxay hayday Skrtel iyo Jimmy Carragher iyo ma garanaysaa caahadkii ayaa marka Cabdi waxaan ku soo dhaweynayaa Muxyidiin seedo aragtaa saadaashada iyo dareenka ku aadan ciyaarta runtii horta sidaa tiimku sheegay weegan ciyaaro waaweyn oo dadku aad ugu raaxaysan doonaan bayna sugaya ciyaartan Liverpool iyo Real Madrid dhaxaysa runtii waa ciyaar aad u qiimo weyn sidoo walaalkeen Cabdi Shaaf sheegay wana ciyaaraha inta badan ma taqaanaa dhifka dadku aad ku xiiseeyaan saaxiibkay Cabdi Baasit baa aad noogu yara talax tagay oo kulli dadka inta badan iyo Real taageerana ma garanayo amjada hore badan ay lahayn mooyaan inta badan waa niman yara faan badan marka horta ciyaartan waa ciyaar aad u adag runtii labada kooxoodna marka imika xaaladda ay ku sugan yihiin adeegto sida sanadadii hore haayeen waxaad moodaa inay hoos u yara dhacsan yihiin laakiin de marka champion la joogo kulli koobkan championka macnihiisa gaarkaas kale oo saadash way adkaanaysaa waliba si gaar anaga marka Liverpool taariikh baan ku leenahay championka oo kulli taariikh lagu daragsan yahay ayaanu ku leenahay ismailihi kulli Real waqtigan joogtaa way reebaysaa anu ka taageeraan sidaan qabo waxa weeyaan mushkiladda kaliya haysta waxa weey waa dhanka difaaca oo difaaciyaanka ugu miisanaaba ilaa imka muddo dhowr bilood naga maqan dibkan horta halkaas ma ka yimid laakiin de sidii kala weerar ahaan iyo dhaxaanta waan dhisanahay labana way kala jiraan marka liiga la joogiyo marka championka la joogo Liverpool dad marka yareeyo xaaladeedu say tahay way kala duwanta wada championka la joogo fiican ku badinaa marka imka wareegyadii ka horeeyay marka imka leego wareegii state iyo kii wareegii koreey 16 iyo kii guruubyada marka leego de aad baan u fiicnayn marka loo eego Real markaan waxa weey taqaacadkaygu wax isleeyahay kooxda Liverpool sanadkan jilbaha way u laabaysaa Real Madrid waan sugeynaa waxaan rajeynayaa inuu ka aarsano ciyaartii finalka hay'adda berigi ay nagaadeen inay naga jabiyeen ninkii Norwegianka Maxamed Salah ilaa markaa ninka naga dhaawaceen bay kor soo kaceen markaan waxaan isleeyahay ciyaarta horta ciyaartan si guud ciyaar weyn bay noqon doontaa laakiin waxaan isleeyahay Liverpool kulli
gacanteeda way sareynaysaa aad bay u mahadsan yihiin cabdibaasid iyo muxiidiin dolba كل والله نود كلا تاجر ريال مدريد ليفربول لبضوا وفانين لبضوا بجوش ويسبدان أنا جي عبد الرحمن أو نحكي كلن كاس عبد الرحمن بس هذا شيء سكسر دواني عبد الرحمن ساداش هذا يا بدنا وبركة روح حتى 50 سفي عن وظيفة قيسي لكن يا بدنا بكلتي يونسو أنا هتصنت هاي طبعا ده كل حلقة حفلية محيدين يا عبد الباسط الله تاجر وين كلاه لكن مركين أجنو حالات لبض كحد هذا يكون شيران يا لبض معلنا كلا وتها iyo situation iyo xaaladaha ay ku jiraan labada kooxood hadda championku waa laba lag hadda lugtii koowaad baa lagu ciyaaraya kooxda Madrid baa la booqanaya garoonkeeda Alfaro Di Stefano ayaa lagu ciyaaraya ciyaarta habeenka soo horeysa marka anigu waxaan qabaa anoo eegaya awoodda kooxda Real anoo eegaya qaab ciyaareedka labada kooxood ay ku jiraan anoo eegaya garoonka lagu ciyaarayo waxaan qabaa in ciyaarta hore lugta hore ay guuleysanayso kooxda Real Madrid marka Yunison waxaan qabaa in Madrid ay guuleysanayso lugta hore garoonkeeda lagu ciyaarayo adigu maxaad qabtaa inay guuleysanayso labada kooxood أود ما سنت عبد الرحمن والرأي هذا معقول رنتي يا سادال معقولة بقى أنا وحنا سادالنا يا كلن كهرة إنه كل ما عندنا بربرع أنا إبرهين يا روحي نقدم تفرن لقى بقى يعني هل كل ما تور لقى والله إنه كل ما تور ما دام الله بدي كحد دفاعي دي كلام قيهين لين عنا راموس كم قيهين لين عنا فان دايك أنا وحنا في ليا إن الله بدي كحد أي ماذا حيسترد دونان طبعا أود وحن يرسينا يا وحوجا لين على ليفربول وديوغو تشوتا فهم في عم بوكشرا ساديو ماني محمد صلاح وانتم بالله بضوا تشامبيونز ليج ادو في عن مركانو هدنا ما دام ليفربول الدفاع في عن هيسن waxaan filayaa in Real Madrid ay iska caabin doonto laakiin barbardhacaanay bereberka hayni marka la joogo gurigaaga ma fiicna marka barbardhacaas oo ay ka faa'iidi doonto Liverpool ayaan filayaa hal ama 2-2 waxa ku xigta ciyaartaas kooxda Manchester City iyo kooxda Dortmund oo runtii ciyaar iyaduna aad u adaga inkastoo Manchester City hoggaanka Premier League hayso kana awood badan tahay Dortmund laakiin hadana Champions League waxa la filayaa Champions League ma kala laha marka wareegada la soo gaaro ma kala laha awood la'aan oo waxaan ognahay in City ay soo reebtay 3 sano u dambeeyay ay reebeen kooxo yar oo ay kamid yihiin Monaco iyo Tottenham kooxaan la filayna aan raahday maaha kooxo yar marka waxaan ku soo dhaweynayaa muxiidiin dol muxiidiin ciyaarta Manchester City iyo Dortmund sidoo aragtaa ciyaartan Man City iyo Dortmund runtiiduna waa ciyaar aad u qurux badan waa laba kooxood aad moodo inay isu kubad dhow yihiin inta badan kubado waxay u badayeen weerar waana laba kooxood oo shantii sano u dhameysay kubado fiican soo bandhigay mid kana mid ah kooxaha ugu waaweyn ee ugu awood badan leh Champions League runtii horta waa ciyaar xiiso leh dadkuna aad u jeclaysanayaan marka waxaad moodaan inay isku yara dhadhow yihiin bad moodaa xagga weerarka iyo oo waxaad moodaa kooxda waxaan sheegay kooxdan Jarmalka Dortmund iyada laftigeedu weerar waxa la aad u fiican oo hogaaminayo ciyaartooygan maalmahan u dambeeyay calankiisu shidnaaye muxuu helan kooxda caalamiina oo wataan niman aad moodo inay age-ka dhexe ku jiraan oo iyaguna imika waqtiyada u dambeeyay kooxda ugu fiican ha ba iyaguna kala wataa horta runtii waa ciyaar aad loo saadaalinayo aad loo jeclaysanayo anigu waxaan is leeyahay markaan yara saadaaliyay xagga Man City baan u yar badinayaa oo maadaama iyadu ay aad moodo bilihii u dambeeyay xoog awoodeedu soo tarisay tababarada championka khibrad u leeyahay kulay wataayo inkastoo la oran karo marka eegto saddex mataana dhowrkii sano u dambeeyay inuu xogaa isagoo xaggii liigi awood ku leeyahay hadana ku yaraa guul dareystay hadana sanadkan wuxuu ku socdaa xawaare aad u sareeya marka waxaan isleeyahay anu waxaan siinayaa oo yara saadaalinayaa doorkan inay Man City yeelan doonto gacanta sare Yuniso City iyo Dortmund horta waa ciyaar marka dhinac laga eego champion marka la joogo aad ay u adagtay marka la eego Dortmund waayihii dambe sida ku socoto City hadal ma la yado 14 dhibcood bay liiga ku hogaaminaysaa liiga kula tartamayso Manchester United iyo Liverpool halfkii hore kula tartamayso Chelsea ma tartamayso saaxiibe aan ogeeyna Chelsea taageerto waxa jirta iyadu laakiin Haaland sidoo saaxiibkii sheegayo muxiidiin Haaland calankiisu baryahan u taagan yahay ragga ka dambeeya dhexda uga ciyaaraya waa rag aad u fiican waxaan anigu saarayaa awoodda doorkan in ay ciyaarta hore ay badin doonto
iyadoo aad u adag tahay laakiin waxaan taageersanahay anigu waxa weeyaanay Dortmund sababo badan oo awgood jira horta City sideeda anagu iskuguma kacsanin oo waxaan ahay anigu Real Madrid marka laga yimaadana Arsenal baan sideeda u taageeraa laakiin waxaan isku kacsanay nin saaxiib aan aho Captain Shafi la yiraahdo isagoo Barcelona taageersan haddana taageeraya Guardiola meel kasta u tagaya marka anigu waxaan doorkan si u taageeraya waxa weeyaanay anagu ka soo horjeeda Captain Shafi Haaland ayaan wataa doorkan oo doonaya inuu Real Madrid noogu imaado si aanu Barcelona u yara karbaashno sidii bariyo hore aanu karbaashi jirnay ma garanaysaa insha Allah taala waxaan rajaynayaa ciyaarta hore inay laakiin ay badin doonto Dortmund sababahan ku sheego Haaland iyo ragga dhexda uga ciyaaraya Captain Hailawin coach aad u fiican nimka bariyahan uu tan coachka hore markii sanadka dhexdiisa laga qaaday xilka sanad coachkan loo dhiibay in badan buu soo kiciyay liiga marka la noqoto Terzic markay noqoto dhibcaha liiga aad buu soo kiciyay waa sidii Flick Bayern Munich oo kale ku sameeyay sanadkii hore isagoo dhaawac ay daadegsinta ay kor u soo kacdo kale marka Haaland ayaan wataa iyo Dortmund baan wataa doorkan way maadsan asxaabtu si fiican bay u falanqeeyeen anigu ka Cabdiraxmaan ahaan markaan eega labada kooxood waqtiga ay ku jiraan macallimiinta kala wata طبعا waa City iyo marxaladii u dambeysay kubadda cagta iyo Guardiola waa qani عن التعريف laba aan isma weydiinayaan City waa koox dhisan macallin weyn baa wata waliba waxaan hay dadka la dhacsan qaab ciyaareedka iyo tekniika iyo tacticada uu ku ciyaaro Pep Guardiola waa nin aqlaaniya وأن دتك عيارة فلانقية ما أنا رئيس رئيس كاي كل فلانقية ما يكشبهان دتك عيارة باش شطرنج كلا يراهو وأن عيارة جودية بدل كرين تصوير شح وحي هيستان إمكانيات كعيارتي ده هيستان من أد تالنت جودو صريو سيتي وحيابها اللي يقول لي وفي تشامبيونز ليج مركز عيارة صح كم يدهين لبا أرين بوجو مهم سنة كو معلن وتسيتي واحد المقامرة always وحان جرين أتاكر وحشلان جري كوحدين وبرتولو وقتها وويرو تسوي حكوا سكرين جت مركا كوحاك وبدأ قبل دفاعات كعيارة إن الكونتراكت كوحلا عياران تسوي سوي جت مركا سيتي إن جولا لقى اليوم لأنه حيابها كلا سيتي سوي جرين الشامبيون كلا جرب واحد كم ده دفاع هذا أو أنت بدن أن دفاع هذا عليس لساري جرين هذا سيتي واحد كاسته العق بدن كبحصي إن البرتغيز أو روبن دياس ليرها نقاس روح سوق برفورمانس كي كوحد جودهاني يسكح الكودي وحكم وقتها انت عيارات الليغا يقولستين هي تشامبيون كانت يمكن سعودان ست دوتموند وكوح اسو دو كوح اسو دو قاب عيارد هانو كوح اتاكريس ويان وير بي عيارته اولويز هذا waxay isla laakiin mudarrib yar dhalinyara saddex bilood ka hor bal asli mudarribka hore Luciano Favre hadda ninkan qabsay Eden Terzic waa nin dhalinyara ولكن وانين aan lahayn khibrad ku filan marka loo eego ciyaaraha knockouts-ka ama isreebka marka anigu waxaan qabaa iyadoo lagu ciyaarayo garoonkii Itixaad Stadium City iyadoo ay City tahay koox performance-keeda iyo qaab ciyaareedkeeda imika uu consequence iyo isku xidhkeedu fiican yahay anigu waxaan qabaa City inay guuleysanayso ciyaartan soo socota bal marka waxaan doonayaa De Jonis oo de khibrad badan u leeyahay Champions League game badan garanay labada kooxood ee wada ciyaaraya Jarmalka iyo Ingiriiska macallimiinta kala wata bal Jonis oo adiga fikrad ahaantaada maxay kula eegtay ciyaartayni guuleysanayaan aad buu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Shaafi runtii si fiican buu falanqeeyay si fiican buu runtii u soo koobay ciyaarta Dortmund iyo City anigu ra'yigayga shakhsiga ah runtii Dortmund waa kooxaha ugu badan ee ciyaara exciting football kubad cag oo xiiso leh waa koox aad weerarka ugu fiican waa koox counter attack aad ugu fiican waa koox ciyaarta baasaska gaaban oo runtii aad u qurux badan waxa horboodaya ciyaaryahanka imika ciyaaryahanada kamida kuwa ugu cadaad caalamka waa Erling Haaland oo isagoo 20 jir ah jabiyay recordkii u yaala Champions League 20 jirka isagoo gool ka badan markay 20 jir ahaayeen dhaliyay Ronaldo iyo Messi iyo Raul iyo Ruud van Nistelrooy iyo cabaaqirada Champions League marka iyadoo isaas tahay hadana waxaan kulli City ba awood badan waliba aad uga awood badan marka awood ahaan la eego laakiin hadana Champions League marka la joogo khaasatan wareegga la joogo waxay ciyaartu wax kasta waa laga filan karaa laakiin hadana haddii aanay wax saadaashayda rasmiga waxa weeye haddii aanay dhicin wax tusaale ahaan oo kale casaan daqiiqada koowaad ama daqiiqada labaad ama haafka hore oo wax weyn ciyaarta ka bedeli kara in City
in City sanadkan ay iman doonto semi-finalka markii ugu horeeyay ay la timaado Pep Guardiola saddexdii sano City u dambeeyay waxa ku dhacay dhirbaaxooyin aad u xanuun kulul mar waxa reebtay kooxda Monaco 2017kii reebtay 2018kii waxa reebtay kooxda Liverpool 2019kii waxa reebtay 2019kii Tottenham baa reebtay 2020giina waxa reebtay Olympique Lyon oo runtii dhirbaaxo aad u kulul ku dhufatay iyadoo aan la filayn marka anu waxaan filayaa 4 sano isku xigay maadaama City la reebay in marka shanaad ay ka baratay 10 fiican oo logic oo sida logic uu oranayo City ba badanaysa labada ciyaareed away iyo home oo Signal Iduna Park marka taga iyo Itixaad marka la joogaba labadaba City ba badanaysa laakiin kubadda cagtu ma laha isku haleeno waxa bedeli kara casaan oo kala san hore u soo sheegay ama waxa bedeli kara tusaalahaan oo kale dhaawac daqiiqadaha horeeya tusaalahaan oo kale Kevin De Bruyne iyo Ruben Dias oo laga wax kasta oo suurtagal kubadda cagta wax kasta oo laga filan kara iyadoo wax noocaas dhacaan mooyaane oo de ka baxsan waxa aan la filayn mooyaane City si nafis ay u soo baxaysaa sanadkan aad baan ugu kalsoon soo bixi doonto halka waxa noogu soo gabagabooday barnaamijkii codka taageerayaasha barnaamijkan waxa igala qayb qaatay asxaab iyo taageerayaal kubadda cagta aqoon weyn u leh aad bay u mahadsanyihiin Cabdiraxmaan Jaafi Captain Basuud iyo Muxyidiin Dool aniga oo waxa la socodsiinay barnaamijka oo xiriirinay Yunus Odowa ah barnaamijka toddobaadada soo socda waxaan ku falanqeyn doonaa kolba wixii ka soo cusboonaado horyaalka qaaradaha Europe ee Champions League daawada waxaan rajeynayaa inaad ku raaxaysatay inuu barnaamijku xiiso ku lahaa oo aanu borin ahayn waxaan kale oo aan idinka codsanaynaa inaad ra'yigiina iyo saadaashiina ku soo dhiibataan commentiska wassalaamu calaykum waraxmatullahi